السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتيوب channel ka daawanayso waa Moha channel. waxaan rajeynayaa hadii channelka ku cusubtahay inaad rukumo doontid subscribe aad dhihi doontid. maantana waxaa ku wada Obey Wall part 2 part 3 ilaa part 4 inta u dambeysay waay. marka waxaan rajeynayaa inaad si fiican u daawo doontid aqligaagu taagan maskaxdaada furan waxaan waa mustaqbalkaagi dantaada ku jirta aday ku anfacay aday muhiim ku tahay si nidaam ah inaad u daawatid aan ilaashatid saan lagu gaadan marka qaar dad gabaraha waxeedu lagu dhoofay holan lagu aaday marka waxay kugu xiran tahay adeeg waxa ina ilaashatid passwordkaaga xitaa iska siinin indhahaaga kala fur abaayoy aday muhiim ku tahay passwordkaaga xitaa iska siinin dantaadi garo waxaagi qofka markuu ku caawinayo dul taagnaaw videogan si fiican u daawo kuna soo dhawow barnaamijkii qaybtii labaad waaye asagoo dhameystiran oo full ah waxaan rajeynayaa si fiican inaad u daawatid indhahaaga furan jabiga ku degan yahay koobkaaga shaahiga ku agyaalo si nidaam ah u daawo ka faa'iideyso fursadda hadayacin meel walba on riixayo si nidaam ah u fiiri waxaan qabanayo arag adigay dantaada ku jirtaa dhalinyarada tahay ka faa'iideyso fursaddan weligaa ha iska dayacin jaanis maalin buu ku soo maraa meeshaan wax walba aan gelinayo hal u daawo waa wax dantaada ku jirto adiga faa'iido ku ah horumarkaaga ka tali dantaada ka fikir wax ku caawinayo ma jiraan meeshaan waa khurbanacas inaad joogtada laga yaabaa khaasatan Nairobi joogtid Ethiopia joogtid Sudan joogtid Uganda joogtid Saudi joogtid Yemen joogtid Oman aad joogtid Imaaraadka aad joogtada laga yaabaa silac inaad ku noolaatid waxa kaaga roon barnaamijkan aad xareysto 45 beri wax saas u badan maahan fara ku tiris waaye sanadkii dhan maanta waa hal asbuuc waqtigu iska cararaya inta dhalinyaro tahay dhoof fursadaada ka faa'iideyso jaaniskaaga hadayacin hal u daawo waxaan sameynayo talaabul baan qaadayo si fiican u feere adigay fursad ku tahay aniga walaalka Soomaaliyeed ahay gabaray adigaan hadda xareysanayo wiilow adigaan xareysanayo aniga walaalkiina Soomaaliyeed ahay inaan garab idin siiyo waan jeclahay dadka badanaa way la soo xiriiraan kaligay ahay hal qof ahay marka inaa idin caawiyaan mar walba diyaar ahay qaar oo u jawaaba qaar aanan ka gaarin jirto aanan u jawaabin oo fursad aanan u helin marka isfahankan shay qaali ah waay marka adigay hadii aad caawin kartid walaasha ama walaalka waa wax aad u muhiimsan oo dantaadan ay ku jirto hadaa caawisid adeeg ku anfacay ajraa ka hele marka wax oo dan muhiim ah kugu jirto waay marka waxaan sameynayo hal u fiirso si nidaam ah u daawo wax aad kugu muhiimsan waay waxaan xareysanaysid waxa laga yaabaa mustaqbalkaaga inuu yahay horumarkaaga inuu yahay dantaada wax ku jirto waay maanta hadaa dhooftid lafahaaga u dhooftay cidahaaga u dhooftay ilmahaaga u dhooftay hadaa ilmo leedahay mustaqbalkooda aad wax fiican u qabanaysaa marka hadii qurbaan aad tagtid indhahaaga ku kala furnaadaan contractiga markaa saxiixaysid iska akhri waxa sameynaysid ogow hadaadan adiga aqoonin sida wax loo akhriyo bulsho badan oo wax sida loo akhriyo taqaana jirto maanta dhalinyaro badan waxa jirto aqoon leh laakiin aanan magaciisi waxba haysanin marka hadaad wax yar jeebka u gelisid intii waxa laga hagaajinayo iska ag fadhisid dantaada ku jirto marka barnaamijka waxa ugu muhiimsan waa zip code-ka iyo address-kaaga iyo mataqaana iyo road number-ka wadada aad degantahay numberkeeda gurigaaga numberkiisa telephone number-kaaga email-kaaga waa xaraf ama number ka rabtid aad ka dhigo laakiin inuu 15 xaraf ahaado ama 15 number ahaado ama isku dar adeeg saada ka dhigatidba muhiimada 15 inuu ku ahaado wax aad adeeg ku muhiimsan waay barnaamijkan waa part 1 part 2 part 3 oo iswato jumlo waay hal mar sawirka qaybta u dambayso sawirka sida loo geliyo si fiican u daabo wax walba iska hubi contractiga maalinka saxiixaysid Skype inaa ku saxiixdaa laga yaabo ama Zoom laga soo xiriiro dadka markay kula soo xiriiraan qaar badan oo nasiib badan ku jira dadka oo maalinka saas u xareystaan maalinka labaad loo soo jawaabo markii hore loogu soo jawaabo ma yaqaaniin meelaha message-ka oo looga diraayo qoladii oo ogolaatay kiiskooda ama dalabkooda qaabishay meel ay kala xiriiraan aanan garanaynin laakiin haddii si fiican u fiirsadaan in arkayaan hadaadan sida wax loo akhriyo aadan aqoonin ula tag qof yaqaano si fiican u yaqaano wax fahansan af ingiriiska at least fahmaayo ula tag aday dan kugu jirtaa horumarkaaga waa waxaan waa mustaqbalkaaga waa u labisaysid waay marka maanta jaaniskan aad u muhiim noogu yahay hadaa Soomaalinahay waagii hore anaga maanan aqoonin aniga barnaamijkan qolo isxamanaysaan ka soo xaday oo ayaga
magaciisa isxamanayo dhahay heblaay way dhooftay heblaay way baxaysaa heblaay visa heshay heblaay contractiga saxiixday heblaay baasaboorkii safaaradda geysay ayagoo isdhahay inta soo arkayaan bulshadeeda dhex keenay maseer ama ciil iga qabtay dartiis aan bulshada u dhex keenay inaad idinka ku dhooftaan waxna ku qabsataan dantiinana ka taxadirtaan waxaan ma la yeeli kara iyo xaggii ka booday dhan iska daa jaanis hadduu kusoo maro weligaa ka faa'iidayso ha dayaacin fursad siday kusoo marto loo daadsadaa maanta opportunity-da way badan yihiin jaanisyada way badan yihiin waxa la raadinaya xaqiyaa lagaaga dhoofinaya walaashay ama walaalkay si fiican iskaga taxdir qofka wax uu dhiibanaysidna ogow holan baa gabar lagu aaday alaabteedii iyadoo waxay diyaarsatay ku daashay lagu dhoof teeda kale faahfaahin dheeraada inaad bixisid waay meeshaan hadda aan emailka gelinayo markuu saan u yahay saan markuu noqdo hadda cagaarka uu noqdo waa okay saas inaad ka dhigtadaa loo rabaa marka indhahaaga ku kala furnaadaan walaalkaygiiyo ama walaashaydii si fiican u fiirso qaabka sawirka loo geliyo wax walba arag waxaan ku qoraayo meesha si fiican u fiirso waa iga koobiyen kartaa haddaa rabtid aniga laakiin hadda wax qalada aan gelinaya wax sax ah maahan aniga inaan ku dhoofana ma rabo danna igagama jirto idinkaa rabaa inaad dhooftiin horumarna aad gaartiin si fiican u fiirsada laakiin si fiican u arka wax walba waxaa ka weyn hadafka adiga nolosha ka leedahay haddaad dhalinyaro tahay isliyaa dhex fadhisid dubnad aa ciyaaraysid turub aa ciyaaraysid dankuu ma ahan waxaan hadduu naga diiday sababta u diiday waxaan soo khalday gabar ama wiil meeshaas ma taawanin hadda gabar aan leenahay hadda markaan taawano uu ogolaanaya hadda horuu ka yeelaya hadda ma diidi karo teeda kale zip code Soomaaliya dad badan waxaan arkay oo dhahayo waa +2526 zip code ma noqon karo kaas zip code-ka Soomaaliya daadan aqoonin dariska wadamada dariska sida Kenya Uganda Ethiopia zip code-kooda ama Djibouti isticmaal waa okay meesha waxaa ku qoran haddii wadankaaga uusan ku jirin select another country ku qoran marka si fiican u fiirso haddii Soomaaliya aysan ku jirin wadan kale ku jiro ka faa'iidayso adigu marna jaanis ha dayacin marna fursad ha dayacin fursaddan qarashka ma aha lacag lagama rabo dantaadana waa ku muhiim dantaadana maqaar ayaa loogu seexdaa maanta qof leen intuu kuu gado $20,000 ka bixinayo dhif iyo khaliil waayo haddii cidaada milyaneer ay yihiin hata kaama bixinayaan laakiin $20,000 afar bilood gudihiisa inaad ku heshidaa laga yaabaa waa adiga dadaalkaaga iyo sidaa u dhaqdhaqaaqdid indhahana ay kugu furan yihiin hamigaagana uu sareeyo mar haddaadan hami lahayn qurbaha waxba kama keenaysid ha iska fadhinin laakiin haddaa hami leedahay wadantaada taqaanid hor u socod tahay sida wax loo qabsada taqaanid bulshada sida loo dhaqmo taqaanid meeshii wax laga mara aad taqaanid هذا مهم كوتاي communication كحاد في عوام مرة باللغات التقاليد وحبنا كوسور تقلها دول كانوا قديسة تقاليدنا شرتي سوات كانوا تقلها هذه لكن إنها دخل خاص ميسد مهم كوتاي وحامل بركة وحامل أرجيهين أنت لك مدعكر هذا مرة بالصوت تاعنا وكون ورر دم كون مجرته مرك هدفك أنكرعن دمت أنكرعن كعمها لسخب صدا هذه تقاليد سيد الله حراسته قفك بالالك وباهن ها قرنن وحرايا سجن هدي رجعت لوسي هذي شلي ما أنت حرايسو إيميل كبدله إيميل كلا سميسو هذيك وحان حكر جديد هذه سدات كورادين كرتو كودوف سدات كودوف كرتو ما أنت أمريكا داربت سدح كنا دور إنك على بحث على جوا قرش ساسو بدن إنك على بحن أمريكا ولا عطيشان تكون صدق كنا دور لو هذا هذيك سدح كل إنك على بحث بس على جوا لكن ماشى عمر لهت متخانت ثلاثة غاد لهت متخانت هدي لو عاونا ينوشي بحث لا وحن بين واي هنقولي على وجرات سنة عد هنقول كوكرات سنة سمالان عد هنقول كوكربتنا مجرته لكن هذيك واي قف كلا جربه إنه قلقل موجيو إنه أفرنا هذان دنتي سيغانو ماشو مرايو ماشو كيم هذا تلابتو قاضي انت بينو كلا اوكيه هذا وفي عنده هداد وحبرتنا هذيك وانفعه مرو البوات وحتخانو ولا لو يعاوي وكمار ميسا قف إنه كعاوي ومباهن محايا أخوان تخف كان أتوقباهنات هذيك يغان إنت أوضاهن تهبيرات مجرته مركا مهم يكون تاي وقو إنه أدي أخوان ليلة هذيك وانفعه إذي أنفعه سمالهن وادنا هذا دنت هذا مخار إيه الله وسحدا حتى صبر كان قلنا صبر خلدنا اسك قلنا ناق عدان صبر كذا اسك قلنا وحن ساس وسمينا إن إذن كو قنعنا إذن نتصنو قابك الله حري
xareysto aday dantaada tahay aniga qalad hadaan u xareynayo micnaheedu maahan inaan aniga u baahanahay hadaan u baahanahay si sax ah u xareysan lahaa aniga uma baahni meeshaan rabay ama danta ka lahaa aniga waan joogaa alxamdulillah qofkaan u dadaalayo ama aan rabo inaan u heeliyo ama aan rabo inuu meel iska soo saaro waa adiga marka walaashaydii ama walaalkaygiiyow dantaada ka fikir haddaad hadafkaaga gaarto aniga rajay ii tahay haddaad dhakhtar noqoto beri oo isbitaal aad fadhiso aniga aan kugu soo booqdo bukaankaaga aan noqdo rajo ka weyn ma jirto maxaan ku noqon karaa marka inaad adiga hadda danahaaga si fiican uga fikirtid iscaawisid dadaashid si fiicanna meel iskaga soo saartid sawirkii wuu yaalay xoogaa qoraal aan qoraynaa oo aan ku faahfaahinayo mar walbo adiga aad faahfaahin iska bixisid oo aan insaana ahay waxaa lagu dhahayaa shaqadan maxaa u dalbatay maxaa u soo codsatay jawaabaa laga rabaa inaad dhahdid aniga waxyaalo cusub aan jeclahay inaan waxaan xiiseeyaa waxaan oo kale ama ilmahaynta si fiican aan u aqaanaa adiga waxyaalaha oo mataqaanaa oo aad u muhiimsan oo adiga kugu saabsan xoogaa qofka akhrinayana farxad gelinaya soo jiidasho muuji gabdho badan oo khatar ah jira wallaahi markay saas u xareystaan commentiyo qurux badan u qora idii hore ka aqbasho ma fahanto wallaahi gabar waxaa xasuustaa 53 daqiiqo markay samaysatay 53 daqiiqo kadib hore laga aqbalay idii communication la sameeyeen cid Jarmal joogta gabar Norway aadaysa gabar hadda Faransiiska u socota mid Talyaaniga aadaysa mid Spain aadaysa mid Ingiriiska aadaysa magaciisa Kuwait oo Australia aadaya New Zealand 7 aadaysa America 4 aadaysa Canada 13 aadaysa marka waxa soo dhan waxay ku dhoofayaan barnaamijkii xareystaan adiga wax ku xayiraayo maxay tahay waxaan qarash ma ahan cid wax ka rabta ma lahan marka dhoofayst kaliya $300 ama $400 camal laga rabo waa marka bixista adiga aad dhoofaysid ma fahanteen marka adiga dhoofaysid kaliya waa inta sida lagu aamino yani ilaa waxa laga bixinayaa $2,000 laga bixinaa qofka inuu aamino in adiga waxay ka go'an tahay diyaar ah u tahay aad rabtid hore u socod tahay ugu yaraan waxa laga rabaa marka $300 ilaa $400 lacagtaas maalinka dhoofaysid diyaar inay ka ahaato muhiimay ku tahay aday dantaada ku jirtaa aday sharaftaada tahay ilaali walaalkaygiiyow ku dadaal fursadaada inta iskiga sheegin dadku waa xaasid kan ku caawinaya mooye baaswoodkaaga waxa ay hayso waxaan waa la iska dhacaa intaan sawirkaaga la arkin hadii oo qof iska tustid waa lagu dhici karaa waa lagu dhoofi karaa aday ku taala waxaaga ilaasho indhahaaga kala fur qofku ku caawinayo hakan buu joogan telefoon ma yaani dhigaha saaraan inta wax laga hagaajinayo haddaadan wax aqoonin si fiican u fiirso gabar facaaga ku dhoofayso waxaaga aday ku taala haddaan indhaha kala furatidna aday ku kala kacay dantaada maqaar ayaa loogu seexdaa commentigii waa qornay submidaan leenahay marka walaashaydii hadafka aad u muhiim u yahay hadafka aad dunidan ka leedahay aad uu kugu muhiimsan yahay walaalkaygiiyo wadna sidoo kale shaqooyinka waa badan yihiin ilmahay kaliima wiilasha way ka cabanayaan waxay leeyihiin ilmahay waxa ahayn ku jiraan meeshaan maya shaqooyinka aad u badan yihiin indhaha kala fur shaqada way badan tahay shaqadu aad u badan tahay laakiin adiga waa qofka raadin lahaa galgal sameyn lahaa wadamada badsan lahaa Switzerland hadda gabaraan iloway Switzerland u socota Norway marka wadamada aad u badan yihiin lahaadaan dadkooda dhoofayaan Hungary gabadha shakor gabadhaas Hungary marka Holland hadda gabadha shay marka aslan mutaqaana waxaan waa biti waa nasiib Europe inta wadan waa 27 wadan iga kooban tahay 27 wadan ka heshid hadiidan war Portugal saddex hadiidan Japan hadaad heshid hadiidan horumar ku soo kordhay wax un baad soo istafiiday ma soo khasaaraysid adoo lacag wata passport wata beriso naqane landeer banaandigay aad tahay wadanka markaa dhex gashid indhaha kala furo asxaab sameeyso dad aad khaanad raadso meesha aad joogtid baro GPS ka sida loo isticmaalo ogow qofka oo wadankaas jooga saaxiibka ama saaxiibada nidaam u daawatay oo si fiican u dhameysatay rajeenaya waa mahadsan tahay daawashada aad daawatay si share garay walaalahaaga si gaarsi channelka rukumo adigana like hala saaro comment ka soo bixi ra'yigaaga ka soo dhiibo
haddii aad wax fahmi weysid ila soo xiriir aniga walaalkaaga ahay waa ku garab taaganaya mar walba horumarkaaga aadaan u danaynayaa adduunyada walaalo lagu yahay aakhira xut istaqaan hab yaraatee ma jirto dantuna ceeb ma lahan dadka isku naca waxtar iyo wax la'aan way kala weyn yihiin waqti waaye idinkan waabta idin fadhiya marka fursadahan wiliga dayacin jaanis hadduu ku soo maro ka faa'iideyso linkiga profilkayga oo TikTok saaran waxaa saaran link Australia ah ka faa'iideyso xareyso asigana dhinac walba adigu raadi fursadaha adii raadi ay ku soo raadsanin adi hadaa raadisid way ku kala kacay hadafkaaga rajeynaysaa laakiin haddii aad iska seexatid cid ku soo raadinaysa beeraatay ma jirto marka dantaada maqaar ayaa loogu seexdaa dantaada mar walba raadi ha fadhinin xilli aad fadhisid ma taagnid 2023 kala maraya walaalkay ama walaashaydii meel ku